haddii aad ku xidhan tahay channelkayga fadlan subscribe saar oo ku soo bir mahadsanid geli jiray xuduudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa gacanta ku soo dhigay ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo qabtay deegaanada kala duwan ee ku teedsan gobolka Muqdisho iyagoo dadyo kala duwan ay si qarsoodiye u rabeen inay u soo galiyaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa madasha qaadkaasi lagu gubayay ayaa waxa goobjoog ka ah barasabka gobolka Muqdisho meer ku xigeenka caasimadda Hargeysa agaasimaha madaxtooyada iyo sidoo kale hoggaanka howlgelinta ee ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu waxa ka hadlay gaashaan sare Maxamuud Ducaale taliyaha howlgelinta ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka warramay tirada qaadka ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhiganaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka bilayska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimadda gobolka Hargeysa halkan waxaanu ku qabanay 1500 geed oo qaadka loo yaqaan jebiska 250 geed oo qaadka loo yaqaan fujiska iyo qaad 2000 marduufa oo qaadka fududeeda dadka loo yaqaana waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga la marinayaa iyaguna halkaasi waxa ka hadlay mudane Cabdicasiis Maxamuud Xaashi meer ku xigeenka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale barasabka gobolka Muqdisho mudane Jaamac Axmed waxaanay hambaliye bogaadin u direen ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay heeganka ugu yihiin sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen qaadka sharci darrada ah ee la soo gelinayo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska xukuumaddu waxa ay ka lahayd waa u yeedhay way la heshiisay dadkan kale ee keenaya jaadka sharci darrada ku keenaya waa arkaysaan ciddi keentaba waa la baabiinayaa halkaasaa lagu qabanayaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan halkan uga hambalyeeyo muujiyeyna feejignaan dheeraada iyo xoog cusub oo aad dheeraad u ah oo aan cid ka baxsan kartaana aanay jirin waxa aan leeyahay ha ku khamaarina gaadiidkiina halkaa ka arkaysaan ha ku khamaarina xoolihiina waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyahooda hoggaanadooda saraakiishooda iyo ciidanka booliska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina oo naftiinna ha ku khamaarina oo caafimaadkiinna ha ku khamaarina gaadiidkani waa hanti qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo hanti baa ku jirta naftiinnu qiimay ku fadhidaa oo ilaahay baa idinkala xisaabtamaya caafimaadkiinna waa laydin weydiinaya ina bulshadiinna u keentaan loo baahan yahay intaa in dadka damiir kale isxakameeyaan oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo carruurtooda iyo xaasaskooda waxaa ayaamahan jirtay in dad badani u qayilaa tegayeen xadka oo gaadiid badanoo sii socda aan arkaynay dadka haddii ay xishoon waayaan oo ummadda ka xishoon waayaan ninka doonaya inuu xadka ku soo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago waxaanu samayn doonnaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo maxamed cali bileeh agaasimaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay ujeedada ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka lahayd joojinta qaadka sababta jaadka loo joojiyay waa sabab caafimaadka loo joojiyayna waa caafimaadka bulshada in xanuunka coronavirus ee dunida oo dhan kaga qaylisiiyey lagaga sii hortago oo aanu Soomaaliland soo gelin waayo dawo looma hayo xanuunka xukuumadda oo joojisay jaadkaasi muddada jaadka la joojiyay ee bisha ku dhow malaayiin dollar ayay dawladdu waayaysaa oo ku khasaaraysaa waxa kale oo iyana dhibaato ka soo gaadhaysa dumarkii masaakiintaha ee sii iibinayay ee risqa maalinaha ka deeyay iyadoo khasaaraha intaa leeg dawladda iyo bulshada masaakiintaaba ku jiro ayaa haddana goosatay in la joojiyo ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameynayeen tan iyo intii la joojiyay qaadkaasi waxa ay gacanta ku soo dhigeen qaad kala duwan iyo sidoo kale gaadiid ay tiradiisu badan tahay